kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington. barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah حكانا قرص بدن عضو ترنبوريو xilli ka mid a xilliyadii aan soo dhaafnay mar dhulka Soomaalida meelo ka mid ah dareenkaasi aad u xoogganaa ayaan maase ka sameeyay maasadii baan baahiyay saasaan ugu gudbiyay Faad Cumar Yare saasayna ku soo baxday bal markana aan soo dhoweeyo hal abuur Fuaad Ibrahim Maxamed oo ku magac dheer Fuaad Waaberi oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay barnaamijka cawayska Washington aad ku maqasheen qaybo ka mid ah suugaantiisa caawana waxa uu Fuaad inala wadaagi doonaa hees uu ka curiyay qabyaaladda iyo weliba qisada ay ku qotontay heestaas iyo weliba waxa uu muuqday markii uu curinayay Cabdixakiin Maxamed Shirwac aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay ruuxantii saacad laftaada ka dhawaajisay qabyaaladdu waa dhibaato ummadda Soomaaliyeed dhan wada haysata ay wada dareensan yihiin xilli ka mid a xilliyadii aan soo dhaafnay mar dhulka Soomaalida meelo ka mid ah dareenkaasi aad u xoogganaa ayaan maase ka sameeyay maasadii baan baahiyay deersana Faad Cumar Yare ayaa iga codsaday inaan hees ka dhigo qayb ka mid ah saasaan ugu gudbiyay Faad Cumar Yare saasayna ku soo baxday markaan intaa ku darsaday in yar run ahaantii qabyaaladdu waxaan odhan karnaa waa dhibaatada ugu weyn ummadda Soomaaliyeed haysata maanta waxaan odhan karnaa diin xitaa inay ka awood badata ayaad moodaa oo aaminaadii diinta iyo qabyaalad markay noqoto dadkeenu qabyaaladda ay ku weyn tahay tusaale ahaan waxaa taa ku cadaliil ah oo ku cadaynaya ummaddan oo inaga midaba inta koorna oo inala midaba oo inala diino inala si walba inala mida sababaha keenayana waxa weeyaan dee dareenka qabyaaladeedu waxaan xasuustaa sheeko iga sheekeeyey in looga qaateen wuxuu igu yidhi maalin baan masaajid ku tukanay deetana masaajidkii nin baa ka kacay sheekha ninkii sheekha ahaa wacdi aad u fiican buu jeediyey oo dadkii aad uga qiiraysiiyey markii lasoo dareeray wacdigii laga soo baxay kadinka la marayo kabeel la xoranayo midii soo dhawaaday baa markaasuu igu yidhi adeer ninku wacdi wanaagsanaayo adeer ninku wacdi wanaagsanaayo buu ku celceliyey buuri adeer ninku waayo mid kaloo ag taagnaaba intaan saaweegay ayuu yidhi buu yidhi waa nin reer hebela deetana isla markiiba maskaxdii ku qanacsanayd wacdiga wadaadkaasi intay isbedeshay ayuu markiiba yidhi waa naga tag haddaa reer hebel waxba ka dhegeysan mayna ninkii dhammaan wuxuu ku qiimeeyey reerku yahay buu ku qiimeeyey aad iyo aad waxay kastoo wanaag ugu sheegayey waxa qariyey qabiilkiisii aad iyo aad marka heestani Fuaad ma wacyigelin baayo dadkii waxay leedahay baasha dhibteedii ka fogaada ma waxay ku boorinaysaa inay baasha dadku tuuraan ma dadkii waxbay u sheegaysaa wax gaaray taabanaysaa waxa nuxurka guud ay gudbinaysaa ka hor intaynaan dhegeysan maxay ahayd muhiimadda weyn waxa weeyaan walaalo ereyada ugu horeeya waxaa ka mid ah qofna nolosha muu dhalan isagoo qof kala neceb qofna nolosha muu dhalan iyadoo la quursado qofna nolosha muu dhalan isagoon la qiimeyn almacnaa qof ka sarreeya nolosha ma jiro keliya ta waxa lagu kala wanaagsan yahay siday diinteenu ina tidhi sida loo kala iimaan wanaagsan yahay loo kala alcabsi badan yahay waa si wanaagsan waaga heestaynu geli doonaa dabcan codka waxaa ku qaadaya Fuaad Cumar Yare laxanka iyo inta kalena ayaa saaraya miisiga walaalo codka saad sheegtay Faad Cumar Yare laxankana isla Faad Cumar Yare ale waxaana miisiga tumay Maxamed Cumar Yare waa la isugu tegey marka aad iyo aad baan leenahay dhegaystayaal aynu heestaasi qabyaaladda ka hadlaysa wada dhegaysana qofna nolosha muu dhalan isagoo qof kale neceb qofna nolosha muu dhalan isagoo la quursado qofna nolosha muu dhalan isagoo la qiimay nolosha muu dhalan isagoo qof kale neceb qofna nolosha muu dhalan isagoo la quursado qofna nolosha muu dhalan isagoo la qiimay qarankiyo qabiilkuna isma
qaban karaano isma qaadi karayaan layskuma qasbi karo layskuma qasbi karo guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii cawayska Washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo raisu sheegtiyo qolo qolo ku faankiyo idaab laysku qursado qadaf aadmi weeyo waxyigiyo qurankiyo jirkiinu oran uwad laysu sheegtiyo qolo qolo ku faankiyo idaab laysku qursado qadaf aadmi weeyo waxyigiyo qurankiyo jirkiinu oran qarankiyo qabiilkuna isma qaban karaano isma qaadi karayaan layskuma qasbi karo layskuma